innaga oo weli ku soconna ka hadalka ammaanka iyo siyaasadaha Asia, gaar ahaan suurtagalnimada duulaan weerar toos ah oo Beijing ay ku qaado Taiwan, jasiiradda Taiwan, isla sanadkan 2022 waa jamhuuriyadda dadka Shiinaha. PRC waxaa kale oo ay wax ka caawinaysaa iyada oo ku shubaysa maandooriyaha dilaaga ah fentanyl gudaha Mareykanka, waxaana ay dishay in ka badan 60,000 oo Mareykan ah sanadkii. qaar badan oo ka mid ah da'da militariga iyo Mareykanku waxba ma qabtaan hadda qabashada dabka. sidaa darteed qorshuhu wuxuu noqon karaa inaan la samayn wax badan oo ku qasbaya Mareykanka inay la dagaalamaan, laakiin samee wax ku filan si aad u ceebayso oo aad u ceebayso marar badan. dabka yara qabo oo ganacsiyada Mareykanka oo haddana u fiirsada Taiwan inay tahay meesha ugu fiican ee gorgortanka iyo marka ay ugu xun tahay xanaaqa la iska tuuri karo xiriirka ka muhiimsan Mareykanka iyo Shiinaha. waxay ku ammaani doonaan Beijing inay muujisay xakamayn iyadoo ku adkaysanaysa Washington inay samayso wax kasta oo ay ku qaadato iska ilaali dagaalka PRC hubaysan ee nuclear-ka. isla cutubka Mareykanka ayaa sidoo kale ku doodi doona in kaalmada Shiinaha ku saabsan isbeddelka cimilada Kuuriyada Waqooyi buuxinta meelaha bannaan waxay dalbanayaan in Mareykanku iska indhatiro dhaqdhaqaaqyada Shiinaha ee ka dhanka Taiwan danaha qaranka ee Mareykanka. marka kan maxaa bedeli kara Beijing? inkasta oo siyaasiyiin, aqoon-yahano, xeelleerayaal dabcan ammaanka ah iyo sidoo kale falanqeeyaal dhinaca diblomaasiyadda ah waxay u malaynayaan in Shiinaha aysan ku soo duuli doonin Taiwan 2022. waxaa jira hal ka reeban. haddii sanadka 2022 Mareykanku uu leeyahay dhibaatooyin gudaha ah oo halis ah sida rabshado baahsan oo ay u muuqato fawdo, mashquulin oo aan awoodin in uu dagaal qaado, hogaamiyaha Shiinaha waxaa laga yaabaa inuu isku dayo inuu fursadiisa ka qaato Taiwan. taasina waxay aad ugu dhowdahay haddii ciidamada Mareykanku dhaqaale yari haysato oo maskaxdoodu ay aad diradda u saaraan sidii ay meesha uga saari lahaayeen xagjiriinta qayaaliga ah, injineernimada bulshada iyo la dagaalanka isbeddelka cimilada halkii ay ka guulaysan lahaayeen dagaalka. runtii akhri warka maalin kasta waxayna u muuqataa in maamulka Biden iyo madaxda sare ee Mareykanka ay isku dayayaan inay siiyaan hogaamiyaha Shiinaha sababo uu ku jabo ama uu ku jabi karayo. marka taasi waa qaadashada suurtagalka ah ee 2022. wixii ka dambeeya 2022 si kastaba ha ahaatee laga bilaabo 2023 ama si kale ha loo qaato, waxaan u malaynaynaa in Shiinuhu weerari doono Taiwan sababtoo ah Mareykanku weli waa fawdo, wuxuuna u muuqdaa mid aan awoodin inuu difaaco Taiwan ama xitaa booskiisa Asia. oo haddii ay si dadka Mareykanka u helaan dareenkooda oo ay xoojiyaan awoodooda iyo isbahaysigooda, Beijing waxaa laga yaabaa inay aragto daaqadda fursadda oo xidhmi doonta. si kastaba ha noqotee Mareykanka iyo quruumaha xorta ah ma dhihi karaan waxa soo socda waxay noqon doonaan la yaab istiraatiiji ah. imtixaanka siday uga jawaabeen ayaa si dhaqso ah u imaan doona. 一对弟兄现在呈现，京城团结队形，象征国军齐心抗疫。